وهاجا ضد خميسته عاونا وحنو كو ايغي دونا جهورير كاي هوبنتي لa'aanta ka taagan siyaasadda UK ee ku aadan ka bixitaanka midowga Yurub dood adag ayaa la isku jilba murxay taas oo shalay ka dhacday aqalka baarlamaanka oo shalay yeeshay kulankoodii ugu horeeyay tan markii maxkamadda ugu sareysa ee dalkani ay laashay go'aankii ra'iisul wasaare Boris Johnson ee uu ku hakinayay howlihii baarlamaanka waxa barnaamijka marti iigu ah Maxamed Ibrahim oo stuudiyaha ila jooga iyo Cabdi Umar oo isaguna ku sugan magaalada Bristol ee dalkan labadooduba waxa ay falanqeeyaan siyaasadda dalkan soo dhawaada labadiina waa mahadsantiin naga aqbasheen ka qaybgalka barnaamijkan aan ku hormaro maxamed sida aan ognahay waa la is haystaa siyaasaduna waa wada cakiran tahay dalkan halkuu ku socdaa horta waa su'aal aad iyo aad u qaaliya horta sharaf bay tahay stuudiyogan oo 10 jir animi maantana anigoo 37 ayaan ku soo noqday marka horta sharaf bay tahay BBC ta ku xigta waxa weeyaan horta waxa su'aasha ka horeysa saddex qodob dalkan muxuu madax isku jiraa maxaa la isku haystaa marka horta ta ugu horeysa waa identity ma European boundary mise English ama United Kingdom British ama European nahay identity baa la isku haystaa crisis baa jirta oo identity ta ku xigtaana waxa weeyaan dhaqaale group business koodu ka xumaan doono oo dhaqaaluhu hoos u dhici doono oo Europe market ku leh oo ka warwarsan iyo group raba in Europe laga soo baxo sharciyadooda sidoo dhaqaalahoodu kor u kaco oo social rights xuquuqda bini'aadanka la siiyay ee European-ka la siiyay si looga soo baxo dadku way garanayaan European Directive 48 hour ka leeyahay kale maternity goal kale waxaas Europe ka yimaadeen ta saddexaad waxa weeyaan arrin siyaasad oo democracy oo crisis bay markaa abuurtay taas waxay abuurtay in baarlamaankii iyo ummadii la iska hor keeno inta markaa gudubta halkee loo socdaa dalka halkuu socdaa dalku wuxuu u socdaa siday u eg tahay inaan deal la keenin aanu baras oo deal ka keenin wagart Cabdi Umar aan soo geliyo oo ku sugan magaalada Bristol Cabdi Boris Johnson waxa loogu baaqayaa inuu iscasilo isagu wuxuu door bidayaa in doorasho la dhigo ama codka kalsoonida loo qaado maxaad is leedahay mucaaradku way uga gaabinayaan ama way uga baaqsanayaan inay doorasho galaan horta salaamu calaykum dhamaantiin baan salaamaya mucaaradku runtii way cadeeyeen Borisna waxay hordhigeen waxay ka baqayaan oo kaliya in uu bilaa heshiis ka baxo Europe marka waxay leeyihiin waa inaad kordhin doontaa heshiiskii waagi dhaweyd sharciga soo saareen Labour ku keenay waliba bill loo bixiyay marka waxay leeyihiin maalinta doonto qabso laakiin waa inaad 31 October kadib ayuu noqonayaa isaguna wuxuu ka baqayaa wuxuu leeyahay dabin bay dhigeen marka waa kan ilaa shalay ku goodinayay oo laha doorashaha la galo doorashaha la keeno doorashaha la galo marka taa ayaa keentay inay dhibaato weyn ku abuurto imika hadii la eego horta dhaqankiisii shalay iyo sidoo u dhaqmayay waxay cadeynaysaa tahay in uu doonayo in uu isagoo aan heshiis gelin oo ka baxo taas markaa warwar badan iyadana dadka ku haysa Cabdi baarlamaanka sida ogtahay hore ayuu u cadeeyay in dib loo dhigo waa buundooyin fara badan iyo isbaarooyin fara badanna way u dhigeen sidee ku dhici kartaa inuu uga baxo heshiis la'aan Europe waxa uu leeyahay hadii imika laba mid way dhici kartaa hadii la gaaro waqtiga iyadoo aan wax heshiis la gaarin waxa weeyaan waa automatic taasina Europe ma doonayso dadka kale ma doonayaan ta uu doonayay isagu waxa weeye in uu laalo gabigeedaba uu meesha ka saaro heshiiskan uu ignore gareeyaa laga baqaya marka laakiin waxa uu leeyahay waxa aan ka keenayaa 17 iyo 18 bisha waxa dhacaya kulankii Europe midowga Europe taas uu doonaya marka wuxuu leeyahay waxba aan ka keeni karaa anigu hadii wax ka keeni waayo dealkan uu soo dhigana meesha ma shaqeynayo waayo waxa la isku haystaa wali waa customerskana wuxuu soo dhigay proposalkan ay keeneen waa mid aan u cuntamin cidna runtii oo ah wali lama arag meel uu ka shaqeeyo xuduud aan la arkaynin oo uu leeyahay technology aan isticmaalaya taas caqabado ah marka ta laga baqayaa ninkan waa nin ma yala adag dabeecadiisii shalayna runtii waxay cadeysay iyo sidoo u dhaqmayay luqaddu uu isticmaalayay waxay cadeysay in uu doonayo inuu ka baxo sharci heshiis la'aan هي محمد أنا محمد بوريس جونسون وحول كل مقول دروين فربضن أنت يريد وجوجي حفيز كان ما لقي يابا إنه نقضى رئيس الوزراء ووقت جاي رأي ذلك الصومالي إما كسر حساب توسع تو بديه because ميل عضق بوس دقي أو وحجري أما وان دمان دونا أما يروان كبحينا
waxa been wuxuu ka dhawaajiyay abdi been sharci iyo been act baa la soo saaray oo uu ku qasban yahay inuu 3 bilood oo kordhisto oo la codsado extension marka waxa is dhaafsan do or die uu leeyahay ma waan dhimanayaa ama waan ka baxaynaa iyo 3 bilood ee qasab ku ah baa is dhaafsan marka waxa iman doonta situation oo deal oo degdega oo Israel ka soo saxo oo arinta Northern Ireland meel iska dhigo sidoo isagu isu badbaadiyo taas laga cabsanaya marka taasna Ireland bay dhibaato ka keeni baarlamaankuna ma ansixinaya taas cabdi aan weydiyo Ireland saameyn inta laga ku yeelan doonto hadduu sida Maxamed sheegay noqoto saameyn aad iyo aad u weynayay ay ku leedahay runtii maanta waxa la soo saaray waxa la daabacay warbixin ka hadlaysay dhaqaalaha Ireland haddii ay ka baxaan iyagoo aan wax heshiis la gelin dhaqaalaha Irish wuxuu ku jira khatar weyn waliba inuu dhaqaaqo burbur ku dhaco oo marka waxa laga codsanayay waliba prime ministerka ra'iisul wasaarahooda inuu dhaqaale ka bida siiyo marka taasi khatar bay ku tahay midda kale waxa laga baqayaa hadduu saa kaga baxo in xuduudkii uu dib u soo noqdo adka waxa baaba'ayo kale Good Friday Agreement kii marka halka caqabada weyn ka taagan tahay Europe-na waxay doonaysaa in aanu marna burburin Good Friday Agreement kii UK Good Friday Agreement maxaa la jeedaa hadii aad fahamsiis daawadayaasha okay Good Friday Agreement waxa weeyaan waa heshiiskii lagu xaliyay caqabadihii muddada dheer ka taagnaa xuduudka Ireland ay isku haysteen Irishka dhexdooda marka halka ay odogeedeen xabada ka dhici jiray xitaa nimankii aaraydu waxay ka geysan jireen gudaha wadanka ay qaraxyo ka geysan jireen marka wax alla wixii baa maanta waxay kamid yihiin baarlamaankii kamid yihiin oo waxay fadhiistaan MPyadoodii baa la soo doortaa marka taas laga baqayaa dan waxa weeye wax alla wixii Europe ah iminka way dhex maraan customkii dhaqdhaqaaqii xorta ahaa dhaqaalahoodii baa kobcay marka taas laga baqayaa in xuduudka adka hadii la keeno waxay noqonaysaa in mataqaana meel walba la baaro oo checkpoints la keeno taasina uma aha cidna faa'iido uma aha okay waa gartay maxamed hadii aan adiga ku weydiiyo sida caadiga ah markii guuldarooyin fara badan ay ku dhacday xisbi kamid ah asxaabta dalka dhisan xisbiga kala fursad ayay u tahay laakiin ma muuqato in Labour-ka ay fursadda ka faa'iideysanayaan ma karata horta Labour-ku 2 sano oo ma 3 sano siyaasad qurux badan bay ciyaareen oo wait and see aan aragno waxa yimaada conservative-kuna isla gubtaan mid way chief gareeyeen oo conservative-ku isla gubteen oo waa kuwa islaynaya maanta ta ku xigtaana waxa weeye wixii laga cabsanayay Brexit baatiyo soo xoogsaday iyagoon wixii ay ballan qaadeen ka bixin ayaa election imanaya marka conservative badan baa marka Brexit teamka ku u codaynaya marka conservative halkaas ku baaba'aya taasi fursad bay u tahay marka mataqaana Labour-ka marka siyaasadii 3 sano la oranayay wait and see aanu daawano hay isku gubtaan inay shaqeynayso weegtay laakiin waa risky waa khatar bay leedahay because 17 milyan euro yiri waan ka baxaynaa qaar baa Labour u badan waa gartay marka ninkan xusbiga haysta wuxuu ka cabsanayo 2-3 sano u aamusnaa kuwana ka cadhaysiin kuwana ka cadhaysiin waa gartay maxamed oo kugu salaabanaya cabdi haddii aan wax yar u yara noqono Europe way ka warhaysaa in baarlamaanka dalkan iyo siyaasiyiintu ay haystaan ma kula tahay inay deal fiican siin doonaan Boris horta runtii Europe way cadaysay waliba waxa iyagu meel adag ka taagan yihiin heshiiskii ay la galeen ra'iisul wasaarihii hore Theresa May in aan waxba laga bedelin heshiiskaasina wuxuu waa halka ugu weyn ee waliba kooxda conservative-ka kamida iyo Labour-ku ay diideen waa xuduudkii Irishka ay dib ugu noqonaysaa marka iyagu mar walba waxay leeyihiin imika waxay yiraahdeen heshiiskan uu soo hordhigay ee uu leeyahay customkii baan ku hagaajinayaa wax ka shaqeynaya meel adduunyada laga arkayna waxan ma aha bay leeyihiin marka taasa keenaysa in iyagu meel adag bay ka taagan yihiin midda kale Boris waxa uu ku doodayay maalmahan oo dhan war hadii aad miiska ka qaadeen heshiis la'aan noo dhilkii taasi waxa iyagii bay hubkii aan kula dagaalami lahaa baad iga qaadeen anagina garbadu baad noqoteen runtii waa caqabad taagan Theresa May haysatay imikana taagan Europe-na way ku adkayn doonaan waayo iyaga waxa faa'iido ugu jirta in aan xuduudka la taaban heshiiska aan wax laga bedelin waa gartay cabdi waxaan ku soo dhawaanay gabagabadii barnaamijka dalkan ma kula tahay inuu gali doono afti ama doorasho guud runta marka loo eego doorasho way dhici doontaa
laakiin waqtigii baa la isku haystaa October kadib bay noqon doontaa marka extensionka la sameeyo ee ku darida la sameeyo mise ma noqon doonto laakiin ta kale ee dhibaatada weyn keentay waxa weeyaan arrintan 3 sano soo socotay waxay muujisay dildilaac weyn dimuqraadiyaddii wadankan waxa lumay aaminaadii dadka iyo siyaasiyiinta iyo baarlamaanka taasa marka caqabada iyadana waa gartay maxamed isla su'aasha aweediyay maxamed dalkan doorasho guud miyuu gali doonaa mise dib ayaa loogu celin doonaa shacabkii inay afti sameeyaan horta waxa qasaba say wuxuu socdaan in doorasho ay dhacdo because baarlamaanku is haystaa siyaasiyiintu way haystaan in ummadda arrintii lagu soo celiyo afin sida maskaxdu say sheegayso cilmigu saas uu badan yahay laakiin say siyaasaddu imika u socoto baarlamaanka badankiisu remain Europe rabaan baa u badan marka whatever deal la soo saxeexo inay ansixinayaan baaba shakiba ka taagan yihiin marka taasina marka waxay abuuraysaa in caqabadu kubadun la sii laado kubadun la sii laado aad iyo aad ayaad u mahadsantahay maxamed ibraahim iyo cabdi cumar oo labadoodaba ka faallooda siyaasadda dalkan xusuusnow wararka ugu dambeeya BBC Soomaali waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali inta ayaan ku soo afmeeray barnaamijka caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aanu mar kale dib u kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo